Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan ku salaamay daawade kusoo dhawow macluumaad kooban oo ku saabsan isbedelada cusub ee shirkadda YouTube ku soo saartay bishan Mars. Videogan kooban waxaan kugu sheegi doonaa isbedelo muhiim ah oo dhanka cashuuraha oo laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan haddaad YouTube-ka partner la tahay oo aad lacag ka samayso isla markaana aad joogto meel ka baxsan waddanka Mareykanka. sidaas awgeed waxaan kugu soo gudbin doonaa videogan kaaban tallaabo kasta aad u baahan tahay inaad qaatid si aad uga qabsatid isbedelkan cusub. haddaba si ay u fududaato waxaan u kala qaybin doonaa videogan dhowr qaybood. qaybta koowaad waa maxay isbedelkan cusub ee cashuureed. haddii aad tahay qof muuqaalada YouTube-ka sameeya isla markaasna jooga meel ka baxsan waddanka Mareykanka, dabayaaqada sanadkan shirkadda YouTube waxay cashuur ka qaadi doontaa lacagta income-ka aad ka samayso daawashada dadka jooga Mareykanka. tusaale ahaan, haddaad joogto waddanka Kenya isla markaasna bishii February aad ka samaysay YouTube-ka lacag dhan $500, $200 oo ka mid ah lacagtaasina ay kasoo gashay waddanka Mareykanka dadka kaa daawaday, shirkadda YouTube waxay kaa goyn doontaa $60 oo cashuur ah. shirkadda YouTube waxay mas'uul ka tahay soo ururinta xogta cashuureed iyo midda maaliyadeed ee YouTubers-ka ka sameeya lacagta shirkadda, iyadoo ay tahay tan heshiis ka dhexeeya shirkadda iyo hay'adaha kale ee cashuuraha soo ururiya waddanka Mareykanka. qaybta labaad, ka waran haddaanan joogin waddanka Mareykanka laakiin uu kanaalkaygu ka diiwaan gashan yahay waddanka Mareykanka. haddii kanaalka uu ka diiwaan gashan yahay waddanka Mareykanka laakiin aanad adigu joogin, cashuurta waxaa laga qaadayaa qofka aad adereeskiisa isticmaalayso. qaybta saddexaad, muxuu kaaga dhigan yahay isbedelkani? weegaga iyo toddobaadyada soo socda waxaa lagu weydiin doonaa inaad soo gudbisid macluumaadkaaga cashuureed adigoo adeegsanaya Google AdSense. si guudna muuqaal sameeyayaasha jooga meel ka baxsan waddanka Mareykanka waxay u kala bixi doonaan laba qaybood oo kala ah: muuqaal sameeye shakhsi oo shirkad ganacsi aan ahayn, iyo muuqaal sameeyayaal shirkad ah oo ganacsi ahaan u furan yahay YouTube-koodu. cashuur intee leeg baan bixinayaa? inta cashuur aad bixinaysaa waxay ku xidhan tahay dhowr arrimood. 1. waxay ku xidhan tahay inaad soo gudbisid xog cashuureed oo sax ah iyo in kale. 2. lacag intee leeg ayuu channel-kaagu ka sameeyay daawashada dadka Mareykanka jooga. 3. iyo haddii waddanka aad joogto iyo waddanka Mareykanka ay ka dhaxayso heshiis cashuureed.